Kolagay hotel golo riboodaga in Hargeysa oba afartan sano ka hor 24 November 1984 waxay ahayd markii la afduubay diyaaradii Somali Airlines taasoo ay saarayeen passenger gaadhaya 120 qof oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali madax iyo dad markaasi iyagu ku diyaaradda ka shaqeynaya diyaaraddaas oo magaalada Muqdisho ka soo kacday isla markaana u socotay Jidda waxay ku sii nasan lahayd magaalada Berbera warbixintan u horeysa bal aynu ku eegno sidii wax u dhaceen iyo sidii loo afduubay diyaaradda 24 November sanadkii 1984 maalin Sabtiya ayay diyaaradii Somali Airlines nooceedu ahaa Boeing 707 falayd lambarkeeduna ahaa 415 duuliyana uu ka ahaa Maxamuud Xaaji Cilmi oo lagu magacaabi jiray Xaaji Dhagax ayaa waxay ka kacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyadoo ku sii jeeday Jidda Saudi Arabia laakiinse ku sii hakan lahayd magaalada Berbera haddaba diyaaraddaasi ayay markay 30 daqiiqo hawada ku jirtay ayaa waxaa xoog kula wareegay 3 nin oo naftood horayaal ahaa ugu horeyna waxa shirka diyaaradda laga hago si xooga ku galay Caawil Cadami Burhani oo dharka ciidamada markaasi ku labisnaa laakiin waxa isku martay gabadh shaqaalaha diyaaradda ka mid ahayd oo la oran jiray Sucaad Maxamed intii uu gabadha iska furfurayay ayaa waxa soo gaadhay nin kale oo ka tirsanaa shaqaalaha amniga diyaaradda markaasi ayuu Caawil Cadami inta uu baastoolad la soo baxay ku dhuftay markaasina waxa kala cararay shaqaalaha diyaaradda kabtankii oo markaasi shirka diyaaradda ka soo baxayna waxa uu dib ugu laabtay shirkii diyaaradda sidaas ayayna hoggaanka diyaaradda kula wareegeen Caawil Cadami Burhani Baasha Muuse Maxamed iyo Axmed Xaaji Maxamed waxay u sheegeen duuliyaha diyaaraddu inay saacadaasi laga bilaabo ay diyaaraddu afduuban tahay halka ay ku dhahaan ka dejina uu ka dejin doono duuliyaha ayaa arrinkaasi aqbalay waxayna ku yidhaahdeen waxaad naga dejisaa magaalada Cadan oo xilligaasi caasimad u ahayd waddankii koonfurta Yemen la odhan jiray duuliyuhu intuu markaasi qaatay amarkooda waa aqbalay waxaana uu isku dayay inuu ka dejiyo Cadan laakiin Cadan iyo dawladdii koonfurta Yemen way diideen in diyaaraddaasi ay Cadan soo caga dhigato xilligaasina waxa caalamku dhami ogaadeen in diyaaradii Somali Airlines afduuban tahay waayo dawladda koonfurta Yemen ayaa arrinkaasi caalamka u gudbisay xilligaasi kadibna diyaaraddu afduuban tahay waa laga war helay mar kale ayaa 3 nin ee diyaaradda afduubtay waxay duuliyaha ka codsadeen inuu Djibouti ka dejiyo laakiin markiiba intii ay ka walaaceen ayay ku yidhaahdeen waxaad naga dejisaa waddanka Liibiya markaasi ayaa duuliyaha diyaaraddu Maxamed Cilmi waxa ugu jawaabay inaanu shidaal ku filan diyaaradda ku jirin isla markaasina gaarsiiyay Liibiya markaasi ayaa afduubayaashu waxay go'aanka mandabeysa ku gaadheen in caasimadda Itoobiya Addis Ababa laga dejiyo diyaaradda sidaas ayuu duuliyuhu ku aqbalay inuu diyaaradda ka dejiyo Itoobiya waxayna diyaaradda Somali Airlines caga dhigatay 12 subaxnimo 24 November 1984 garoonka caalamiga ee Bole International Airport ee caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa kadib markii ay diyaaradii Somali Airlines soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Itoobiya Addis Ababa iyadoo sida 130 qof kuwaasi oo kala ahaa 118 qof oo rakaab ahaa iyo 12 shaqaalaha diyaaradda ahaa rakaabka diyaaradda waxa ku jiray 7 qof oo ajnabi ah 2 Talyaani ah hal qof oo ka soo jeeda koonfurta Yemen mid diblomaasi Masri ahaa mid ka soo jeeda Mareykanka iyo mid ka soo jeeda waqooyiga Yemen waxayna isla maalintaasi oo Sabti ahayd kuna beegneed 24 November 1984 wada hadal u furmay dawladda Itoobiya iyo afduubayaashii diyaaradda afduubayaashii ayaa ugu horeyn ogolaaday inay sii daayaan 15 dumar iyo 4 carruur oo diyaaradda saarnaa iyo weliba 3 qof oo shaqaalihii diyaaradda ka mid ahaa oo mid ka midii uu dhaawac ahaa afduubayaasha oo u hadlay hogaamiyahoodii Caawil Cadami Burhani waxa uu dalbaday in dilka lagu filinayo Beritoole oo ahayd 25 November maalin Axada 1984 ardaya oo ku xidhnaa jeelka Mandheera la joojiyo iyo in maxaabiis u xidhnaa arrimo siyaasadeed oo 14 qof ahaa la sii daayo loona gudbiyo waddanka Djibouti Cadami waxa uu si cad ugu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya haddii ardaydaasi berri la laayo inuu isna midhmidh u toogan doono madaxda dawladda Soomaaliya ka tirsan ee saarnay diyaaradda kuwaasi oo ka mid ahaa barasaabkii gobolka Hargeysa ee xilligaasi
ibraahim cabdi muuse afgaab iyo inuu diyaaradda qarxin doono berrito dhibtii ugu weyneed ee jirta xilligaasi waxay ahayd in dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya wax xidhiidha oo diblomaasiyadeed oo toosi aanu ka dhaxayn markaasi waxa dhacay in dowladda Talyaaniga oo laba nin diyaaradda ka saarnaayeen ay soo dhex gasho arrinka iyadoo safiirkeedii magaalada Addis Ababa u joogay u xil saartay inuu arrinkaasi galo arrinkiina waxa uu noqday in afduubayaashu waxay dalbadeen loo gudbiyo dowladda Itoobiyana u sii gudbiso safaaradda Talyaaniga markaasi kadibna Talyaanigu u sii gudbiyo xukuumadda Muqdisho waxayna ku jawaabto uu isagu ka soo qaado haddaba arrinka dilka ee Cawil Cadami oo hore ciidamada asluubta uga tirsanaa uu soo bandhigay ayaa waxay la yaab ku noqotay saxaafadda iyo dowladaha caalamka xilligaasina saxaafad badan oo abaari Itoobiya ka dhacay ka soo waramayay ayaa joogay Itoobiya laakiin markan hawlahooda oo dhanba waxay u wareejiyeen inay ka waramaan xaaladda iyo afduubka diyaaradda Somali Airlines isla habeenkii Sabtidii oo ahayd 24 Noofembar 1984 waxay dowladda Soomaaliya ku soo warcelisay inaanay jirin cid berritoole la laynayo waxa kale oo ay sheegeen inaanay ogolaan doonin waxay afduubayaashu dalbadeen waxaana dhacday muddo 5 jeer ah ay afduubayaashu marba dib u dhigaan xilliga kaba dambaysta ah ee ay qarxin doonaan diyaaradda Somali Airlines aakhirkiina waxa si toos ah wadahadal u galay 27 Noofembar 1984 madaxweynihii Soomaaliya xilligaasi waxaana uu maalintii ku xigtay oo ahay 28 Noofembar 1984 uu soo saaray war-saxaafadeed laga akhriyay raadiyo Muqdisho kaasi oo ku shaacinayay in dowladda Soomaaliya ay aqbashay wixii ay dalbadeen afduubayaashu ayna joojiyeen dilkii ay ku fulin lahaayeen ardayda dhawaqa dowladda Soomaaliya ka soo yeedhay waxa uu soo afjaray 75 saacadood oo wadahadal u socday iyaga iyo mujaahidiinta afduubay Somali Airlines waxayna mujaahidiintu aqbaleen dhawaqaasi lagaga noqday dilka ardayda waxayna ooda ka qaadeen rakaabkii saarnaa diyaaraddii Somali Airlines 28 Noofembar 1984 markii ay diyaaradda sii daayeen ayuu Cawil Cadami shir jaraa'id ku qabtay qolka nasashada ee robotka Addis Ababa hadalladiisina waxa ka mid ahaa ma nihin anagu argagixiso waxa kaliya aanu diyaaraddu aftuunay waa inaanu badbaadino walaalahayo Cawil Cadami isagoo hadalkiisa sii wata dhool cadeynayana kana hadlaya baqdinta haysay madaxdii Soomaalida ee diyaaradda saarnaysiiba barasaabka Hargeysa afgaab ayaa waxa uu yiri aad ayuu cabsoonayay afgaab oo hinayuu ku waashay waxaana uu haystay inaan dilayno laakiin waxaanu sheegnay inaanan dilayn sidaas ayay dowladda Itoobiya magangelyo ku siisay Cawil Cadami iyo 4 nin oo la socday Cawil Cadami ilaahay xarjinaha ka waraabiyay ayaa isagu waxa markii 4 cisho diyaaraddaasi Addis Ababa ay fadhiday ee ay dowladda Talyaaniga ku guuleysatay in ay laga noqdo dilkii dhalinyaradii Mandheera ku xidhnayd ee dilka ku xukunayd isla markaana shuruudihii la qaatay odayaashu ay soo jeediyeen waxa shir jaraa'id qabtay oo garoonka diyaaradaha ee Boli Airport Addis Ababa ku hadlay taliyihii markaasi watay howlgelinta afduubka diyaaradda ee Kabtan Cawil Cadami Burhaan isagoo markuu xoogaa hadlay ku wareejiyay hadalka Baashe Muuse Maxamed Baashe Diig oo sheegay in isagu reportka akhri doono waxaana ka mid ah hadaladoodii leader of the hijackers. My name is Captain Cawil Cadami and my friend is Ahmed Haji Mohammed Aden and Baashe Musa Mohammed. So that I was feeling tired. My friend Baashe, we will give you the statement, full information about our hijackers. So that if the international community does not come to help of the struggling Somali masses, even more desperate actions will be forced upon them, considering, however, that our objective is not to hurt innocent people, but to help them. The humanitarian nature of and the person of Somalia, the government of Somalia, are taking a guarantee to save the Somali students and others, and that succeed is behind of helping of Ethiopians. They try to save the passengers, our service, and which students and the diplomatics they are arrested in the central jails of Somalia.
markii diyaaradii la sii daayay waxay dib ugu noqotay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho Airport halkaas ay ku sugayeen madaxdii Soomaalidu ayaga sheekaysanaya barkay ayaga labaha midna hore midna gadaal ayaga war isu gudbinaya barkay waxayna istaamo qaasa ay ku wada hadlaan mar sigaar ama asbriina marka macnaha waxa way dadka meesha tiradooda intii leegin bay ku sheeganayeen marka dambe aan dareemay ogaadeen waa ila soo baxay woona cararay waxna laga qaban karin mar hadaan qabanay oo xabad riday maxaa laga qaban karaa waa u sii deeyay meesha uu galko gubtay hada ku laga qabsado marka kala maxaa laga qaban karaa xabadii baan ka qaadnay laakiin inuu qarxiyaan ka baqanay wixii sugan siinay sidaas inuu geysteen wadankay rabeen afduubkaas wuxuu u dhacay dad argagixiso ah ayaa diyaaradii qolka noogu soo galay nin darees kabtan ciidamada asluubta labisan oo gacanta bastoolad ku haysta waxaa daba ordaysay oo ku dhaganeed gabadhii ugu sarreysay hoosteesyada Sucaado waana ay ku duubneed waxaa isla markaana daba ordaayay oo ku dhaganaa yar oo ah dadkeena diyaaradaha ka shaqeeya cali ninkaana wuxuu qasdigiisu ahaa in uu xabadda ugu waxyeeleeyo si uu diyaaradaas u hantiyo waxaa u dhici weyday xabadda oo uu la xarbinayay intuu dagaalkaas socday markii aniga aan isha ku dhuftay waxaanba u qabay qof aniga dacwad iigu socda ee uma aanan qabin qof oo annaga duulaan ugu ah markii ay isku qabsadeen ay ku dirireen oo aan u soo istaagay si aan u kala dhiciyo ayay xabaddiisii u meel martay uu ila soo aaday gamista oo xabadda gamayay ayaa isla markiiba waxaa haleelay yarkii cali ahaa oo qabtay kuna dhacday xabadda kadib waxaa uu ka xoroobay dadkii ku dheganaa annagii diyaaradda wadnay ayuu na milkay oo uu bastooladiisii nagu khallifay in aan u hoggaansanno awaamirtiisa waqti dambe ka soo wareegtay 30 sano ayaa wariye Cabdisal Herani waxa uu helay kabtankii diyaaraddaasi waday Xaaji Dhagax Muuse Xaaji Cilmi oo loo yaqaanay Xaaji Dhagax waxana uu la yeeshay waraysi dheer oo sidan u dhacay idinka dawladii Soomaalidu sida xiriir ula sameeynayeen ama waxa la idinka dalbanay ugu sheegaysay talyaaniga iyo ba sameeyay Soomaali meesha kuma jirinba Soomaalidu waxa u dhaxeeyay yani nimankan afduubay iyo talyaaniga iyo dawladda Soomaaliya ayaa wada hadlay saddexdaas talyaaniga waatay markii uu idinka dalbaday ninkii watay afduubayaasha Cawil Cadame ina saamaxadaan maxaa dalabay kale uu soo jeediyay laba shay waxa kale uu yiri markaad Soomaaliya tagtaan ومركينا لسيدين أيكور مركات سوماليا تكتان واحد وعركتين وحنا إهين أي شيء ما يوحى شيء يا ديارة دي ويدكتي أفتون كيف كوتشرتي ما حيد البدن الدولة دي سومالي ضاي سماجة وحيد البدن ضد باجري ديارة قبل سنة أفضوبي ضد باجري أو أرضي إني مرينا يو تضرح والدليل لها أحد أنا لو حنا أفضوب السبت حتى الدليل لها dadkaas in aan dilin bay jeedda ku socday oo qolaatay dawladda Soomaaliya markaa waa qolaatay talyaaniga ayaa ka dhex shaqeynayay meesha waxa socotay negotiation aad u adag in Soomaaliya baa markaa joogteen adsa dumarkii caruurtii wala sii daayay baatay rag imsa ku haray markaa diyaaradda waxa boqol iyo shan meelahaas sida u noolaydan afarta maalmood aad soo fadhideen fadhi waa saas sida loo fadhiyo ayaad ku saaxanaysaa ba waaga kugu baryaayay hurda ma jirto markaa ma adiga hurda iska dama muumiyaan waa dhibaato cuntado kale yeedin siinay waxaan la siinaysay markaan red crosska laakiin sandwich kama badnayn sidee baad ula xidhiidhisay markaa rakaabka kale aad ugu sheegaysay hadba waxa socda ma la xidhiidhi karin maadaama adiga qudhaado aanad warbahaynin ma la xidhiidhi karin marmar baan fiirin jiray ama cawil u tagi jiray waxaan oran jiray
dad baa jiray oo jilbaha maarta aada u dhibtooday inaan cawil weydiiyo yiraahdo hoosa loo dejiyo waxoogaa yar ha soo socdaa marka ma ogolaan jireen laakiin qofku waa soo noqon jiray meeshu dhan baa saahaystay afduubka diyaaraddaasi waxa uu badbaadiyey islamarkaasna dilkii ka baaqsday dhallinyaradii ardayda u badnayd ee magaalada hargeysa laga xidhiidhay islamarkaana madheere la geeyey ee maxkamaddii badbaadadu ay dilka ku xukuntay warbixinadan iyo kuwa la midkii waxay xusuusinayaan dadka aan xusuusta badan ka qabin ama aan aqoonta badan u lahayn wixii Soomaaliland ka dhacay iyo sidii qabyaaladaysnayd ee dadka markaasi jeelasha lagu guriyay qaarna loo dilayay inay maanta wax badan ka ogaadaan bal wixii dadkani ay u soo mareen qarannimada Soomaaliland ay maanta harsanayaan oo ah midaan ciyaar ku iman ee dhiig ku timi